war-saxaafadeedkan waxaan ku bilaabayaa inaan sheego qodobada ugu muhiimsan ee fariinta dowladda. ciwaanku waa cudurkii safmarka ahaa ma dhammaanin, laakiin wuxuu galay weji cusub. waa in aynu baranno sidii aynu ula noolaan lahayn fayruska. shaqadayadu waa xakamaynta si loo ilaaliyo adeegyada caafimaadka iyo si looga maarmo in bulshada la xidho. dadweynaha Norway si wacan ayay u talaalan yihiin, taas darteed in sidii hore ka badan ayaynu u adkaysan karnaa isqaadsiinta oo badata. laakiin sida aynu ognahay ma awoodno in bukaan badan hal mar cisbitaalada la dhigo ama in culays badan ku yimaado adeegyada caafimaadka iyo daryeelka ee degmooyinka. yoolkeennu waa in la xakameeyo cudurka. waxaa la rabaa in laga hortago in cisbitaaladu buuxsamaan oo culays badani ku yimaado adeegyada caafimaadka. isla markaana waxaa la rabaa in aan bulshada la xidhin mar kale. marka hawsha xakamayntu waxay u baahan tahay in la isu miisaamo labadaas arrin. hadda isqaadsiinta cudurka ayaa ku badan Norway. waxaa kordhay bukaanka la dhiga cisbitaalada, waxaana kordhay bukaanka u baahan daryeel dheeraad ah. laakiin inkastoo isqaadsiintu badatay, haddana dadka cisbitaalada la dhigayo uma kordhayaan si la mid ah sidii hore, waayo talaalka ayaa difaac laga helay. nooc fayruuseedka cusub ee omicron ayaa keentay xaalad aan la hubin. waxaanse hoosta ka xariiqayaa in annaga iyo hay-adaha caafimaadka iyo agaasinka caafimaadku saacad ula socon doono xaaladda si aanu u helno xogta loo baahan yahay haddii lasoo rogayo tallaabooyin ku saabsan xaaladdaas. isla markaana waxa ugu muhiimsan ee lagu xakamayn karo cudurku waa talaalka. taas darteed waxaan codsi weyn u dirayaa dadkiina aan istalaalin, istalaala, iyo dadkiina loo fidiyey irbad talaal ah oo xoojin ah oo ah irbadda saddexaad, qaata talaalka. waxaa muuqata sida la ogyahay in irbadda saddexaad faa'iido leedahay oo dhaqso u shaqaynayso. hadda waxa ugu muhiimsan in dadka 65 sano ka weyni qaataan irbadda saddexaad, iyagoo ah dadka ugu nugul. haddii la sii kordhiyo qaybta talaalan dadkan oo ah dad si wacan u qaatay irbadihii koowaad iyo tii labaad oo dhaafay ilaa 90%, oo haddii ay imikana qaataan irbadda saddexaad, waxay macno weyn u leedahay culayska ku imanaya goobaha caafimaadka. kadib marka dadka 65 sano ka weyn la siiyo talaalka oo hadda ka socota degmooyinka oo dhan, waxay dowladdu codsanaysaa in degmooyinku irbad xoojin ah siiyaan dadka 45 sano ka weyn oo toos loogu gudbo kooxdaas. dowladdu waxay degmooyinka fartay inay dardargeliyaan hawsha talaalista. arrintan xeer nidaamyo ayaanu ku soo saari doonaa. yoolku waa in booskaha ka hor dhammaan dadka 18 sano ka weyni ay qaateen irbadda saddexaad. arrintani waxay u baahan tahay in aad loo xoojiyo howlaha talaalista ee degmooyinka, waana arrin la wado hawsheeda. fariinta dowladdu u dirayso degmooyinka ayaa ah in dowladdu bixinayso dhaqaalaha ku baxaya shaqadan muhiimka ah ee ay wadaan. degmooyinku way yaqaanaan hawshan, khibrad ayay u leeyihiin. marka waa in dib loo abaabulo fikradihii wacna iyo dadkii isxilqaamay, waayeelkii shaqaalihii caafimaadka ee wakhtiga dheeraadka shaqayn karayay iyagoo aan waayin xuquuqdooda, ardayda iyo dadka kale ee ka qaybgeli kara. marka inkastoo talaalku yahay waxa ugu muhiimsan ee cudurka lagu xakamayn karo, islamarkaana talaalku yahay tallaabo heer qaran ah, waxaa hadda loo baahan yahay tallaabooyin kale oo heer qaran ah. waa in meelaha qaar la geejiyo iyadoo aan bulshada la xidhin. waxaannu soo rogaynaa 2 xeer oo cusub. waa kuwan: haddaad la degan tahay qof cudurka laga helo, waa inaad gasho karantiil guri ilaa intaad iska qaadayso baadhitaan cudurka laga waayay. arrintani waxay qusaysaa dadka 18 ka weyn, kuwa talaalan iyo kuwa kaleba. si karantiilkaas looga baxo, waa in dadka talaalani mar kale isbaadhaan ugu dambayn 7 maalmo kadib. dadka aan la talaalin waa inay 7 maalmo maalin kasta isku baadhaan tijaabada degdeg ah ama maalin dhaaf isku baadhaan tijaabada PCR-ka ah. arrintani waajib kuma aha carruurta, laakiin waa lagula talinayaa. kaasi waa mid. ka kale ee aanu soo saarnay waa haddii COVID-19 kugu dhaco, waa inaad dadka gooni uga baxdid 5 maalmo. arrintani kuma xidhna inaad talaalnayd iyo in kale. maanta ka hor, qofka talaalan ee aan qabin calaamadaha cudurka waxaa laga rabay 2 maalmo iyo inuu 24 saacadood aanu qabin wax xumad ah ka hor intaanu ka bixin goonida.
waxa kale oo aanu soo saarnay 3 talooyin oo cusub waana muhiim in si wacan loo fahmo ka koobaad waa soo jeedin dalkoo dhan qusaysa oo ku saabsan in afdabo la isticmaalo marka la joogo goobaha caafimaadka iyo daryeelka dowladdu waxay kaloo soo saartay soo jeedin dalkoo dhan qusaysa kuna saabsan in afdabo la isticmaalo marka la raacayo gaadiid dadweyne iyo taxi iyo marka la joogo dukaamada iyo suuqyada haddii aan la kala fogaan karin waa muhiim maadaama hadda la gelayo xilligii Christmaska oo dad badani ka adeeganayaan suuqyada waxa kale oo aanu sii wadinaa soo jeedintii ku saabsanayd in tijaabo laga qaado ardayda joogta meelaha isqaadsiintu ku badato ee isla markaana culays badani ku yimaado goobaha caafimaadka iyo daryeelka tusaale ahaan halkan Oslo waxaa hadda aad loo kordhiyey tijaabo qaadista dowladdu waxay isla markaana degmooyinka isqaadsiintu ku badato ee isla markaana culays badani ku yimaado goobaha caafimaadka iyo daryeelka ka codsanaysa inay ka fekeraan in guryaha lagu shaqeeyo waxay taasi hoosta ka xariiqaysaa muhiimadda ay weli leedahay in degmooyinku hogaamiyaan howlaha la qabanayo degmooyinku isku mid maaha anaguna weli waxaanu rabnaa in tallaabooyinku noqdaan kuwo xaaladda ku habboon marka waa muhiim in degmooyinku qaataan go'aamo ku habboon xaaladooda ugu dambayntiina waxay dowladdu aaminsan tahay in tallaabooyinkani ku filan yihiin xakamaynta cudurka laakiin waxaan hoosta ka xariiqayaa in tallaabooyin intan ka culisi iman doonaan haddii loo baahdo annagoo la tashan doona dadka nasiya talooyinka wacan oo ah agaasinka caafimaadka iyo macadka caafimaadka dadweynaha oo ku talan qaadan kara xogtay ka helaan waddamada kale iyo waayo aragnimadooda talaalku wuxuu keenay in difaaceenu aad uga wacan yahay sidii uu ahaa 2 sano ka hor mar kale waxaa yoolku yahay in xilliga qaboobaha la xakameeyo isqaadsiinta cudurka waxaana hadafku yahay in marka la gaadho xilliga booskaha ay dadku qaateen irbadii 3aad ee talaalka haddaba su'aalo ayaanu diyaar u nahay